walaalahay waxaa leeyahay mataqaana carrow daaqadiina ka soo boodaan maaha darbiina ka soo boodaan maaha darin in laydinku duuduuba maaha dariiqii aad ku iman lahaydeen ayaan idiin haynaay iyo diyaaradii aad soo raaci lahaydeen Air Canada sidii doonto ma ahaato waxaa jira tahriibiyaal badan waddo xun aad marto ha marin wax fudud adigoonan hooyadaa information fiican baloo lagu iibin islaantu habeenkii seexan waayeen waddo qurux badan soo maraysaa xaggaad ku soo socotaa ama kala iibin foorgad hangeer baa laydhaa airportka maxaa ku yaalla gaajaylo yes we can ha waan samayn karnaa وريعنا ايوه يا رحمن ديو كلو تكتي سفي عم بيلو تكتي سيدي دو هذا برنامج كيف الوضع روني سيدي والنبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة دقة داول سيا وشيغو travel with شيغو سيدي دو هذا وهلكم وحيلا فدي اسكو سو نقد وناكسان رمضان مبارك رمضان كريم سيدي دو هذا وانيغي يلو يردي انيغي لفتكيغو يا ني دوماني عرس صغيرو channel هلكا كايك وكا يوتيوب كيك بفكسي بقول يربا كدمان بفكسي سيدي دونتو waa soo kacay aniga laftirkayga waan yara daalanayo xaggan baan ku yara jeeday oo yara daade buuguma dalsawd basida maxaad fayndintay maxaad baan waa khalkhalsanahay sidii doonto ma ahaato muuqaalkeenii inoo socday baryahan ayaan doonaa warbixin aad iyo aad oo si fiican oo wax badan nii faahfaahino inaan niga sheekayno wax badan oo qaldan baan aragnay waxa saxan baan nii sheegaynaa sidii wax u jiraan baan nii sheegaa dhagahaaga furo sambuuskaaga intaad ka soo kacdo soo fadhiisa walaal hadhow waana soo weydiinine horta lambarkiina waa kan lambarku waan qabanaynaa laakiinse ramadaantii xaajadu shaqadii iyo afurkii iyo wixii isku weydiweeday sidii doonto ma ahaato wax hadhaya maaha muddo yaroo gaaban dad badan oo Soomaaliya joogana waxaan ugu bishaareynaa inaanu ka masuum soo socono aan warbixin badan iyo hawlo badan ba hayno horta ku soo dhawo dadka salaan hadalkii waan kula jeeday hama waanu iska in xogaa baan iska yar sheekaysanay waxaan leenahay dadka ramadaan mubaarak ramadaan kariim walaalahay mar kale waxaan leenahay soo dhawaada carre waxa weeyaan carras qeyr soo idinku sheegay channelkiisa waa inaad subscribe like and share mar kale waxaan leeyahay dadkii soo dhawaada mega fogtiin soo dhawaada sidii doonto baa hata hadalkaana kuu furaya waxaa jira dad badan baa horta nala soo hadlay aad iyo aad waqtigeenu kala duwan shaqadaadii iyo wax qilqiil galay dadkiina waad raali gelisay shaqadaadiina waad raali gelisay dadka waxa u kala duwan aad doonaya inaad noo kala faahfaahiso waxa aad adigu u baahan tahay iyo sida aad wax u sheegayso iyo dadka sidaad wax ugu sheegayso inaad u kala dhigdhigto hadalka sii daadaba horta marka hore waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin taleefanadiina sida iila soo xiriirteen sidan idiin wada maqlaysaan idiin wada bartay aad iyo aad baa idinku farxay hadalkaada ku haysta ninka TikTok-ta iska leh eena soo dhigay horta waa mahadsan yahay laakiinse dadka lama xaqiro waxa la yidhaha channelka ka soo daawada dadka badankooda markay nala soo hadlayeen waxay leeyihiin TikTok-tan kaa soo arkay TikTok anigu ma lihi aniga ugu badnaayo 300 baan isugu gubtay markaan mid soo bilaabaan dhulka ka soo kiciyay walina muu istaarbin waruntiisa marka hore waxaan rabaa inaad tagtaan channelkayga travel with Sheego dad badan baa runtaada carrow igala soo xiriiray oo waxaa kaa soo daawaday TikTok marka waxaan leeyahay walaalayaashay walaalkay leh TikTok-ga wuu mahadsan yahay magaciisa muxuu ahaa SGS baa ugu qoran madaxweynaha u saaran waxaan leeyahay walaalkay anoo xasib madaxweynihii baa haysta walaalkay aad buu mahadsan yahay aad iyo aad buu mahadsan yahay waxaan ku leenahay thank you sad noo support garaynaysid we'll support you the same way waxaan leeyahay 300 baa isaga daawanaysa anigiina 3,000 baan dhaaflaan maxaa qaldan naga daayo nabiga ku sallallahu alayhi wasallam rabadaanka naga farxiyo aniguna buuxiyaan ballan qaadnay waa soo wadnaa wayna soo socdaan dad badan oo sharaf leh habla aad iyo aad u sharaf badan baa ila soo hadlay waxaan jecelahay inay qofkii ila soo hadlay telefoonka wuu badan yahay marka hore waxaan rabaa inaan idiin sheego telefoonkayagu waxa weeyaan Monday to Friday from 8 o'clock to 12 o'clock after 12 telefoonka ma qaban karo way dhamaatay waxaana naga horeysaa 8 saacadood baa naga horeysaa
marka kii aan ka qaban kari waayo iga raali ahaw kii aan ka qabtayo waxaan jeclahay inaan kuu jawaabay su-aalaha waxaan rabaa inaan idiin sheego dad badan way soo wacayaan waxay weydiinayaan su-aalo aan su-aalaha ka hadlahayn marka hore waxaan idin idhi 2 sannadood experience university inaad haysatid oo experience oo 2 years oo meeshaad ka shaqaynaysay oo meeshaad ka shaqaynaysay la wici doono war hebel kuu shaqeeyey 2 sannadood marka annaga wixii xagga xigoo dhan everything waa run wax beeni ma jirto okay marka walaalahay waxaan rabaa inaan u sheego anigu gacanta kuma hayo fiisayaasha wadadii baan hayaa loo marayay haddii si saxa aad waraaqaha noo siisaan oo noo hagaajisaan annagana waan idin tusaynaa sidii ay kusoo baxayaan waraaqaha qodobka koowaad waxaad tiri 2 sano experience macnihii inaad meeshaad u shaqaysay aad ka haysato certificate ama CV sida u taqaano waa qodob kalabaad waa inay university degree haystaan waa inaad jaamacad kasoo baxday oo shahaado jaamacad haysta waa 2 ka saddexaad waxa weeyaan waa baasaboor ajnabi waan try garaynayna baasaboorka Soomaaliga laakiin waa laga fiican yahay baasaboorka Soomaaliga aad markasta waa laga fiican yahay waxa markaan kale idin leeyahay walaalahay dad badan hablan badan oo da'da ka yar aan leeyahay 2 sano inay jaamacadda dhamaysteen way soo waceen marka iyaga laftigoodana programa kale ayaan raadinaynaa si aan ugu sameyno dadka da'da yar si high school halkan ay ka galaan wixii 18 ilaa ka yar 18 amba ilaa 20 wax ka yar oo jaamacaddii dhammaynin weli marka kaana weli waxaan sheegi karo maaha hadda because programkii weli gacanta kuma hayno mana hayno confirmation ma ka hayno marka waxaan leeyahay dad badan meel kasta iga soo wacdeen gabdha ila hadlaya waxaa ku yiri mataqaana alla inaan haysan lahaa bas weyn kulligood waan soo qaadi lahaa soo dhawaada haddaan kari karayo kulligiin waa idin keeni lahaa I know shucuurta ay qabaan dhalinyar badan oo raba inay waddanka yimaadaan ilaahay ha igu kii soo dhiibo ilaahay idinkana ha idiin sahlo mar kale waxaa idin leeyahay walaalahay soo dhawaada telefoonadiina aad iyo aad sabtidii axaddana by the way sabtidii axadda ma shaqayno sabtidii axadda waa marka nasanayno reerkeega odaygaa ka shaqaysa soo wada shaqayna aniga isaga iyo carruurteedu qabo carruurta wuxuu samee marka sabtidii axadda telefoonna ma qabano mana shaqayno Monday to Friday-na 8 aroornimo ilaa iyo 12 duhurnimo taleefanka waan ka jawaabiyaa qofkii su'aalay weydiinaya waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin hadalka adaa ku haysta hooyooyin baa kula soo xidhiidhay oo dhalinyaro badan dhalay oo dhalinyaradii mala hooyooyinkooda wuxuu sheegay dhalinyaroonkii ma hayaan waxaa jirto dad kale oo ku odhanaya lacag maxaana laga rabaa inaan lacag inuu rabin anigu waan u sheegay qof kasta teleefanka waan uga sheegay waxaan ku yiri anigu waxaan lacag hadda ma idinka rabo waxaan idin eegayaa waa inaan idin shaqo tagaa eegaa seen waraaqaha idinku keeni karaa marka hadhow toole markaan u soo helayna iman karaan ayaa lacagta aan ka wada hadli karnaa wax lacagoon hadda ka hadlinaa ma jirto layna waxaan hadda gacanta ku haya male waa inaan hubsadaa inaan qofka u samayn karo warqadda markaan hubsaday tahay wax kasta ama shuruudii soo buuxiye qodobadaas ama ay ka soo baxaan shuruudahaas keeno oo dhan markaasaan ka wada hadlayna iyo meeshan su-aalo badan oonan ka jawaabi karin halkan laga hadli karin telefoonkaan ka dhamaysanay aroosada 5 group waxaan leeyahay qofka 5 group ku jira 5 group ha ka soo bixin waa wax fiican waad soconaysaa waa lagu samaynayaa way xidhan tahay Canada laakiin next year baa la furaya waa iman kartaan waa samayn kartaan mar kale waxaan leeyahay Ramadan Mubarak Ramadan Kareem in su ducayno noo duceeya aan idin ducayno meenahay aad hadalka adaa ku haysta si qurux badan baad nooga jawaabtay waxaa jiro oo kale dad ma garanaysa waaweyn oo baasaboor haysta ajnabiya Ethiopian Djiboutian Kenyan dadkaasi wax lagu qabanaya aan dee 3 dhaafay ayaga maxad leedahay dadka waaweyn maxaan idhaahdaa waxa weeyaan sponsorship weeyaan marka dad waa inay dad halkan u joogaan sponsor garaynayo keenaya wadadaas ayaga loo faray waan gartay 5 groupka ugu fiican saan hore kuugu sheegay 5 group oo lagu soo da' ma laha 5 groupka da' ma laha hawlo badan aan halkan ka sheegi karin oo maaldood hawlashaan isla soo qaadanay hawlahaas dad badan way soo qaadi karaan ayagoon waxba haysan ama system kale u maraya telefonka
call me hadda eeg soo wacana taleefanka waxa ku xiga face to face waxa ku xiga anigu faylasha ma ururiya soo ma maalin dhow live membershipna waan samaynaynaa maalin dhow live ayaan idiin soo geli doonaa sidaan taleefanka idinkala hadlo livena waan idiin iman doonaa waan ka wada hadli doona markale waxaan idin leenahay carow ramadaan mubaarak aan isu duceyna ku dheh kulligeenba soo dhawaada ahla sisaamaxo carra saqiiraha ilaawina ku siiya dhac ku siiya travel with Sheego waninka madaxweynaha si warkiisa saartay tiktok ku jira madaxweyne aad baad u mahadsan tahay laakiin sidee madaxweyne halkan ku soo qoray Sheego traffic ka soo daawada ma inta ay badna oran karo waxa faras nooga degmaysa mahadsan aad buu mahadsan yahay aad baa u mahadsantiin kulligiin waan idin jecelnahay soo dhawaada runtii gabagabadii hadalka markaan soo qayaxno inta wax aad doonayso dadka waad u cadaysay qofkii kalena si gooni isaga kula soo xiriiraya haddii waxa kale uu doonayo laakiinse taleefonku waa noo muhiim ininkana waa nii muhiim anigana waa noo muhiim waayo wax badan aan halkan ka odhan karin bano halkaa kaaga sheegin face to face baan iskugu imaanaa arrimo badan baa socda hawluhu way fara badan yihiin haabsaani waxaan kala ilaawna carrayna u sheego waxaan leenahay wax la yidhaahdo membership special people I'm sure way yaqaanaa kulligood macaamiisha dadka specialka membershipka soo gala su'aalaha privately ayaan idinku jawaabaynaa wixii aananu ka sheegi karayn halkan oo dhan ayaan ka wada hadlaynaa iyaga especially kuwa membershipka anytime their call their way noogu duwan yihiin kuwa cusub waayo ayagu hore noola qabsadeen telefoonadoodan haynaa awoon isla fikiranay waxyaalo badan baan ka wada hadalay waad si ogtay ninkaaga ay daawanaa ama gabadhaan ay daawanay face to face baan ula hadli karnaa go travel with Sheego and go and make yourself membership membership so ina noqotid maxaa la very important person or life one to one aynu wada ninka dee macmiisha kuwa ninka kale waad kala garanaysaa aad isku daali mayno markaan nimaano ninkaasu daanigu noogu duwan yahay waxaan idin leenahay walaalahay dad badana na soo wacaya oo qof kasta waad ka taqaana soomaalida annagu waxaan nahay very dad daacad dad runta idiin sheegaya dad aan waxba idin weydiisane miyaan wax idin weydiisan waxba idin baan weydiisan waxaan haynaa information for you information aan walaaladay ku caawinayno oonu sheegayno meeshay soo mari lahayn jidkay soo mari lahaayeen waxaan leeyahay mar kale adaa hadalka ku haysta war waynu maya intay kusoo gabgabeno xildhibaanada soomaaliya laga soo doorto meel kasta ahaadaan waxa loo soo doortay inuu shacabkiisa iyo dadkiisa waxa uu qabto waa sax oo reerka uu ka yimi biyo ma leeyihiin tuuladu ka yimi iskuul ma leeyihiin caafimaad ma leeyihiin wax noocaas ma leeyihiin adigu looyarnimadaada aad baratay ayaad doonaysaa soomaali maxamed inaad ugu qabato xataa qabiilkaaga maa tegin qabiil ma aqaano anagu soomaaliyeed baan ilaahay soomaaliyeed baan hadhow laakiin saree burcaan noqon soomaalida oo dhan wuxuu taraysaa aad iyo aad muuqaalkan waxaan malaynaynaa intaan gabgab muuqaalka xiga inagoo isku dub wax nagaga tegaynaa haddii aad ku cajisan waan ka raali gelinaa muuqaalka xiga waxaan nagaga tegaynaa peace and love like share subscribe buff ku sii travel with Sheego bye walaalahay waxaan leeyahay mataqaana carro daaqad inay kasoo boodaan maaha derbi inay kasoo boodaan maaha darin in laydinku duuduuba maaha dariiqii aad ku iman lahaydeen ayaan idiin haynaay iyo diyaaradii aad soo raaci lahaydeen air canada sidii doontaba ahaato waxaa jira tahriibiyaal badan waddo xun aad marto ha marin wax fudud adigoonan hooyadaa information fiican baloo lagu iibin islaantu habeenkii seexan waayeen waddo qurux badan soo maraysaa xaggaad ku soo socotaa ama kala iibin forgad hangeer baa la yidhaha airportka maxaa ku yaalla gaajaylo